Dagaal culus oo saakay waa berigii hore soo bilowday ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Buulaburde, halkaas oo lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo maxaabiis dagaal ah. Al-Shabaab ayaa saakay intii aan la gelin salaadii subax weerar ku soo qaaday fariisimihii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugnaa deegaanada jiinka webiga Shabeelle ee maalmihii la soo dhaafay laga xoreeyay, waxaana dhacay dagaal aad u culus. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay dileen in ka badan 30 horjooge iyo maleeshiyaad kale. Dagaalka ayaa ka dhacay aagga deegaanka Jicibow oo dhaca jiinka webiga Shabeelle. Gudoomiyaha ayaa sheegay in nolosha ay ku soo qabteen dagaalamayaal kale oo 3 gaaraya, kuwaas oo sawiradooda ay soo bandhigeen iyagoo indhaha ka duuban. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda Soomaaliya Abuukar Macalin oo galabta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dagaalamayaal badan ay shabaab ka dileen, sidoo kalena kuwa nolosha lagu soo qabtay dhul weyna looga saaray. Taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneyl Cabdulaahi Cumar Maxamed oo ka mid ah saraakiisha howlgalkan wax ka hogaaminaysa ayaa sheegay in deegaano badan oo dhinaca jiinka webiga ay kaga dhumaalaysanayeen laga saaray, halkaasna khasaare, dhimasho iyo dhaawacba lagu gaarsiiyey kooxdii Al-Shabaab. Dagaalka xooggiisa ayaa saakay waxa uu ka dhacay deegaano u dhaxeeya Beerayabaal iyo Jicibow oo ku yaala jiinka webiga Shabeelle, isla markaana hoos taga Buulaburde, halkaas oo muddaba ay dhufaysyo uga qodnaayeen kooxda Al-Shabaab. Dagaalka maanta ka dhacay Hiiraan, gaar ahaan jiinka webiga Shabeelle, ayaa qayb ka ah howlgal ballaaran oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay muddooyinkii dambe ka wadeen gobollada dhexe ee dalka si ay uga xoreeyaan Al-Shabaab. Weerarkan ay kooxda Al-Shabaab saakay subaxnimadii hore ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa muujinaya in dagaalka uusan weli dhammaan, inkasta oo khasaaro culus la gaarsiiyey kooxda. Sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Muuse Salaad Wehliye, dagaalka ayaa sababay dhimashada in ka badan 30 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, halka kuwo kalena ay nolosha lagu qabtay. Maxaabiista la qabtay ayaa sawiradooda la baahiyey, iyagoo indhaha ka duuban, taasoo muujinaysa guusha ay gaareen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Abuukar Macalin oo galabta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay khasaaro baan soo gaartay, isla markaana dhul ballaaran laga saaray. Waxa uu xusay in ciidamadu ay ku guulaysteen inay ka hortagaan weerarkii saakay dhacay, iyagoo burburiyey goobo ay kooxdaasi isku uruursanaysay. Dhanka kale, taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka, Korneyl Cabdulaahi Cumar Maxamed, ayaa sheegay in howlgalkan lagu jebiyey Al-Shabaab, lagana saaray deegaano ay kaga dhumaalaysteen jiinka webiga Shabeelle. Waxa uu xusay in dagaalku xooggiisa ka dhacay inta u dhexaysa Beerayabaal iyo Jicibow oo ka tirsan degmada Buulaburde. Dagaalkan ayaa imaanaya xilli ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay maalmihii la soo dhaafay sii xoojinayeen duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyagoo guulo ka gaaray deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dawladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dagaalka sii wadi doonto ilaa laga ciribtiro Al-Shabaab, iyadoo taageero ka helaysa shacabka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ciidamada dawladda sii wadaan howlgallada ka socda Hiiraan iyo gobollada deriska la ah, si loo xoreeyo dhammaan meelaha ay weli ku sugan yihiin Al-Shabaab. Xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan, iyadoo ciidamada dawladda ay halkaas ku sugan yihiin si ay uga hortagaan weeraro kale oo ay Al-Shabaab isku daydo. Wixii warar ah ee ku soo kordha, waan idiin soo gudbin doonaa.